wadadii ambiyada ay raacayaan والصادقين والمصلحين يكوي رونتا بدنا يكوي مصلحين تاها اي وحاجاتينيي ويكونون معهم معودا اي اهانيان oo markastaba iyaga ay iskala socdaan iyaga ay isku go'an yihiin iyaga ay isku ficil yihiin iyaga ay ku dayanayaan ya ayyuhalladheena aamanu taqullaha wa kunu ma'a saadiqiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dadkii xaq rumeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada dadka runta badanna muxooda noqda oo ma garanaysaa min afcaalihim oo waxay sameeya laakiin qof run badan hadaa iskala socotid oo saaxiib la tahay laakiin aadan sameeynin wuxuu sameeyo adna aabeen badan tahay de markaa miciisa matid waa iskala socotaaye laakiin ilmi kasifaatihi matid mid sifooyinkiisa leh oo kale matid markaana waxaa la doonayaa in dadkaas muxooda noqdo oo lagu daydo waxaa ka mid ah علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى قفكو إنه خوف كسميسيه وحا كمد يتبين في لسانه فيمتنع من الكذب والقيبة وحو كلاسيفين يا أمي إيجيا هذا الكيس إيجيا هذا تنا وحي كذب أو بين يا وحي حنا ويسيجيتك وكلام الفضول وحونا يسيجيتك هذا الكديرات وتصالحان تدكو إني شيكستان وعادي لكنسي إني شيكوين فربضنا كانوا نوع ما لا يعني كشيكستان توحوي وفضول من الكلام قف أصلا اسكتي مادين قف كاس وحيدان هذا كلا هذا لكنسي هذا لا فربضنا اسكما لا يعني إيو فريوين كمان تلاديكو هبل بانتجيا وإنتاس أو سعود بنص الشيكستان يا وينشوجيا أو مقارنة ثانيين بان لبلانسنا هايو عاو لما اسكلا شيكستان يا oo ninsa wiil saaxiibka yaa la balansanahay oo waan iskala sheekeysanaya ana waxaas waa wax ma garanaysa iska malaa yaani waxa weeye sheekadu waa inay sheeko ku socoto ama arin afulinaysid ama adii ku wanaagsan adduunkaaga iyo aakhiradaada waa inay noqotaa hadow markuu kadibkii yanamimadii uu ka tagay muxuu sameeyay dhikrka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu ku mashquula فتلاوته القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى إنه القرآن كأخريه إنه أذكارته يذكره كلا أخريه أيا كم الأحسفوينك تتكم متقينتها إن وحاكلوا كم إنك أبقان قلبي جودا أبقان وحي كساران عداودا يو نعيبك يحسد كوالوهد إحسديان waxayna geliyaan nasiixo iyo unasiixeen inay unasteexayaan dadka kale walaalahood iyo inay unaxariistaan oo shafaqata lil muslimiin inay dadka muslimiinta unaxariistaan oo qalbigaagu waxa laga yaabaa ilaahay inuu ku ibtileeyay shay iska nacayb ina dadka iska nacdo ina qabiil dhan iska nacdo ina reero dhan iska nacdo in ma garanaysaa aad bila sabab iska nacdo xitaa haday sabab leeyihiin dib garanaysaa waxa weeye waa iska dambi iyaga u taala laakiin adiga qalbigaaga inay nacayb geliso qofkan isagii ba khaldan oo qofkan haduu khaldan yahay isagii ba ma garanaysaa xumaanta ilaahay subhanahu wa ta'ala u fuuday isagii ba ma garanaysaa khaldan markaana qofkii khaldana inay analysis khaldanaatid oo ma garanaysaa oo ku soo qalbigaaga inaad balaayo ku beertid taas waa dambi kale khaladkiisu isagu ha ku ekaado qofka waa la yaabantahay Soomaa uu khaldamay maadaama alla yaabantahay de khaladkiisu isagoo ha ku ekaado laakiin san adiga haduu khaladkiisi ku saameeyo oo qalbigaaga ina xasido iyo ina iska nacdo waxyaabaha geliyo taas waa mucjiso marka dadka iimaanka leh waxay sameeyaan qulubtooda waxyaabaha lagu ibtileeyo way ka saaraan oo way ka xalaan oo waxay geliyaan didkiisa oo bididha tamayasul ashyaa sidaba hadaa doonaysid inaa wax daaweysid waxan waxa lagu daaweeyaa didkiisa xitaa dadka adibada ee wax daaweeya dhaqaatiirtu waxay isticmaalaan badana wadaawooyinka la isticmaalo hadaa baartid xanuunka qabow daawadiisu wayra kulosha xanuunka qadaad ee ma garanaysaa sifooyinkiisa uu kamid yahay xanuun qadaad daawooyinkiisa waxa kamid inay yara macaan tahay xanuunka ma garanaysaa
qofka kululeeya ee kuleylka ah daawadiisu waxay noqotaa daawo yara qabow. markaana almuhim waxa weeye inaad sidaa ku daaweysid oo haddii qalbigaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaawad iyo xasad uu ku beeray kuwii ay xaasidaysay cadaawadda u haysay wanaag u samee oo waxyaalaha fara badan oo jacayl keenaya samee. qofaa nacbayd waa xaasidaysay qofkii u fadhiiso iskala sheekayso adduunyo fara badan sii waxyaalihii ay ku xaasidaysay oo dhan u fasax ma garanaysaa waxaa samaysaa dee qofkii calaaduul sidaas ma garanaysaa faraha kala bax oo sida haddaa samaysid ma garanaysaa waxaa helaysaa ma garanaysaa wixii qalbigaaga waa ka saartay. laakiin haddaa iska balfisid oo aa ka carartid oo aa ka dhuumatid oo ma garanaysaa in uu kula hadlo aadan fursad u siin dee marka qalbigaaga waad ku sii abuurtay qalbigaaga waxaad ku reebtay ma garanaysaa xaasidnimadii iyo wixii dhibaato ayayna kuu keenaysaa. waxaa ka mid ah an yakhaafa fii amri badnihi inuu calooshiisa u boqo oo wax xaraana uuna gelin wax xalaala uu geliyo oo cuntadana uu ka cuno wuxuu awoodo uuna isku badin. xitaa dee calooshaada si waxaa u baqasaa in xanuun ku ritid iyo inaad xaaraan siisid. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka xaaraantinimay inaad siisid iyo in xanuun aad ku keentido dee wax fara badan iska cuntid. sidaasoo kale dadka ahlu iimaanka ah calooshooda way ilaaliyaan. waxay kaloo ilaaliyaan basarkooda iyo aragtidooda iyo waxa ay daawanayaan oo wax wanaagsan ayay daawadaan. adduunyadana kuma eegaan il jacayl sababtoo ah adduunyada il jacayl haddaa ku egtid way ku dhex gelaysaa adduunyadu way kaa buuxsamaysaa hadhowtana ma raadinaysid ila dunya ilaa adduunyo mahaane wax kale kuma sawirmayaan. laakiinse waxay u eegaan adduunyada calaa wajhi lcibrati inay ku tusaale qaataan inay ku qudro qaataan in ay kii maskiinkaa dhahaan adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maskiinnimada ka badbaadiyey. kii qanigaa ee ilaahay caasidayay markay arkaan inay dhahaan adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala qani hadduu kaa dhigi lahaa sidaasoo kale ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u caasidi lahayd. in ay kuwaana qaataan adduunyadan sideedaba inay kuwaana qaataan inay u joogin oo kaliya inay iska isticmaalaan waxa agteeda yaala. maaha qofku wax kastoo adduunyada yaala inuu iska isticmaalo raaxa kastaba isku galo. raaxadan waxaa laga yaabaa inay xil weydid sababtaa wuxuu waa adduunyo. laakiin adiga khibro qaadasho iyo xikmad ayaa lagaga baahan yahay. waxaa ka mid ah inuu liyihiisa u boqo oo qofkaas uu wax xaraana uuna aadin oo macsiya. waxaa ka mid ah inuu gacantiisa u boqo oo uuna wax xaraana oo ma garanaysaa soo qaadan. waxaa ka mid ah in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala adeeco isagoo weliba ka cabsanaya in uu riyaa la yimaado qofkaas iyo in ma garanaysaa uu istusiyo waxaa la yimaado nifaaqna uu ka cabsanayo. فإذا فعل ذلك هدو أمرضا سمعيو وحيابها هدو سمعيو وحكم يديهي تدك إلهي سبحانه وتعالى ويري والآخرة عند ربك للمتقين. آخرنا إلهي سبحانه وتعالى أكتي سعي وهاتي تدك متقين تا آخرو نعموين كده إيو جنة إذا محدقة برح تران وحا إسكاله dadka mutaqiinta oo qofku haduu taqiyay cadaab ma arkayo hore ayuu jannada galiya. haduu ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaan iyo diin iyo ma garanaysaa istiqaama oo isugu daro qofkaas hore ayuu jannada galiya